tababaraha kooxda Liverpool ee Jurgen Klopp ayaa ku taageeray Mohamed Salah inuu soo bandhigo xilli ciyaareedka cusub kadib markii weeraryahanka Masar uu soo afjaray shaki ku saabsanaa mustaqbalkiisa Anfield isagoo u saxiixay qandaraas cusub oo waqti dheer ah kooxda Premier League. Salah oo 31 gool u dhaliyay Liverpool xilli ciyaareedkii hore markii ay ku guuleysteen labada koob ee maxalliga ah ayaa qalinka ku duugay heshiis 3 sano ah bishii hore. xaqiiqdii qaab ciyaareed fiican ayuu ku jiraa, dabcan wuu ku faraxsan yahay inuu halkan joogo. Klopp ayaa u sheegay suxufiyiinta ka hor kulankoodii furitaanka ee Fulham Sabtida maanta ah. Salah ayaa sidoo kale ka soo muuqday koobka qaramada Afrika xilli uu 30 sano jirka uu dheelay waqti aad u dheer, laakiin Klopp ayaa ku adkaystay inuu u halgamayo inuu mar kale ismuujiyo. Kadib dhowr toddobaad oo fasax ah, Salah had iyo jeer waxaa ka buuxo awood iyo tamar, wuxuuna ku soo laabtay qaab wanaagsan, ayuu yiri tababaraha. Wuxuu u muuqday mid aad u wanaagsan dhammaan xilli ciyaareedka ka hor, waa laga yaabaa inuu sii socdo. Iyadoo Sadio Mane uu u dhaqaaqay Bayern Munich, waxaa jiri doona cadaadis dheeri ah oo saaran Salah si uu u hogaamiyo weerarka, taasoo uu ku xoojiyay weeraryahanka reer Uruguay ee Darwin Núñez. Liverpool ayaa ku dhameysatay kaalinta labaad xilli ciyaareedkii hore iyadoo Manchester City ay dhibic kaga qaaday horyaalka. Darwin waa diyaar, Klopp ayaa yiri. Waxa uu u baahan yahay waqti uu waxyaabo badan la qabsado, laakiin waxa uu hore u ahaa caawimo dhab ah. Waxay u ahayd tababar ku habboon xilli ciyaareedka cusub. Liverpool ayaa ku bilaabanaysa ololaheeda Premier League iyada oo Sabtida maanta ah u safri doonta Craven Cottage si ay ula dagaalanto tababaraha Fulham Marco Silva. Jurgen Klopp kooxdiisa ayaa u soo muuqday guuleystayaal qancin kara kulankooda ugu horeeyay ee tartan rasmi ah xilli ciyaareedka cusub kadib markii ay 3-1 kaga adkaadeen Manchester City kulankii Community Shield ee isbuucii hore. Haddaba aynu eegno sida uu Jurgen Klopp u diyaarin karo kooxdiisa Liverpool kulanka soo socda. Alisson Becker ayaa ku soo laaban doona birta goolka Liverpool kadib markii uu dhaawac ku seegay kulankii Community Shield ee Man City. Jurgen Klopp lama filayo inuu isku shaandhayn ku sameeyo shaxdiisa daafaca iyada oo Joel Matip uu weli yahay xidiga sida weyn ugu loolamaya booska daafaca dhexe ee Virgil van Dijk. Khadka dhexe Jordan Henderson waa inuu ku soo daro Thiago Alcantara iyo Fabinho iyadoo Klopp uusan hayn dooqyo kale kadib markii ay dhaawacyo soo gaareen Naby Keita iyo Chamberlain. Wiilka cusub ee Darwin Núñez kadib markii uu soo bandhigay qaab ciyaareed cajiib ah kulankii City isbuucii hore ayaa u muuqday inuu hogaamin doono weerarka Liverpool iyadoo Mohamed Salah iyo Luis Diaz ay door weyn ka qaadan doonaan. Haddana bal aynu eegno ciyaartii shalay ee Arsenal la yeelatay Crystal Palace. Gabriel Martinelli iyo gool uu iska dhaliyay Marc Gueye ayaa ku filnaa dhibcaha kulanka Crystal Palace ee furitaanka Premier League. Mikel Arteta ayaa amaanay adkeysiga dheeriga ah ee Arsenal kadib markii ay kooxdiisa 2-0 ku garaacday Crystal Palace si ay u helaan dhibcaha ugu badan habeenkii xalay ahaa ee furitaanka Premier League. Heerka rajada iyo xamaasadda ayaa ku soo badanaya garoonka Emirates kadib markii ay soo bandhigeen qaab ciyaareed cajiib ah oo isku diyaarinta xilli ciyaareedka cusub. waxaana Arsenal ay soo bandhigtay ciyaar wanaagsan habeenkii furitaanka. Gabriel Martinelli iyo gool uu iska dhaliyay Marc Gueye ayaa ku filnaa Arsenal. Palace ayaa horumar ka sameysay ciyaarta iyadoo Aaron Ramsdale loogu yeeray inuu sameeyo 2 badbaadin oo sare halka William Saliba uu la dhacay difaaciisa iyada oo Gunners ay shabaqeeda la wareegtay. Arteta ayaa isticmaalay isbarbardhigga kulankii furitaanka Arsenal ee guuldaradii 2-0 ka soo gaartay Brentford xilli ciyaareedkii hore si uu u soo bandhigay inta uu la eg yahay adkaysi badan oo uu haatan ku leeyahay kooxdiisa. Waxa uu yiri halkan kuma guuleysan doontid adkaysi la'aanteeda. waxaana la kulanay xilli ciyaareedkii hore waxaan ku bilownay si dhab ah oo ka duwan wixii aan sameynay sanadkii hore. Dhisidda maskaxdaas iyo raadinta hab aan ku maro daqiiqadahaas oo nadiif ah. Shabaqyada horyaalkan ayaa muhiim u ah guusheena. Waanu ku guuleysanaynaa inaan taas sameyno. Waxaan rajaynaynaa inay taasi kalsooni ku abuurto kooxda.